kusoo dhawaada barnaamijka aan ugu magac darnay hagaajinta maqalka iyo muuqaalka. maanta waxaan idin hayaa loo yaqaano double exposure. waa hab qurxinayo videoyadaada oo aad u fudud runtii. waxaad u baahan tahay kaliya waa camera iyo white background iyo dharka xirantaa inuu noqdaan dhar madow ah ama madow xigeen ah. dharka cad oo kale kuma fiicno. intaas markaa samaysid qaybtii kood way dhamaatay. qaybtii labaad ayaa ku harto ah sidii loogu sameyn lahaa softwareka ama loo habeyn lahaa. haddaba way fududahay arrintan. waxaad isticmaalaysaa software kasta oo lagu editing gareeyo wax sida Final Cut ama Premiere Pro. adiga taa rabtid ayaa isticmaali kartaa. hadda Final Cut ayaan ku jiraa. waxaan soo qaadanayaa sawir ka mid ah sawiradii aan rabay in aan double expose ka ku sameeyo. mid un baan dooranayaa sawiradan kan doono. kadibna waxaan soo qaadanayaa backgroundigi aan rabay in aan isticmaalo. haddaba hawsha xaggaan ka bilaabanaysaa. waxaa haysataa hadda maxaan ku yidhahda sawirkaagii aad soo qaaday oo xaggii dambe uu caddaa. kadibna waxaa haysataa laba background. waxaa keliya u baahantahay inaad samayso waxaa blade inaad tagtid blend modeka meesha ay ku qoran tahay. kadibna aad tiraahid screen kana sidoo kale blend modeka inaad tagtid kadibna aad tiraahid screen. markiiba waa arkaysaa inuu kasoo dhexbaxayo. okay, marka hadda waa colorkaad bedeli kartaa. kadibna waxaad sameyn kartaa black and white ka dhigi kartaa haddaad doontid. habba sidaa doontid ayaa ka dhigi kartaa. marka intaa kadib dee adiga u madax banaan hadba saa jeceshahay. kaasoo kale black and white ka dhig. kii horena sidiisi ku daa. that's it. intaas weeyaan. waa mahadsantihiin. sidaa iyo nabadgelyo.